Waa salaami dhamaan walaaley channel-ka ku xiran maanta waxaan rabaa inaan idila wadaago sida ilmaha jacayl aan ku tusin karno cunugaaga qaab noocee ayaa jacaylka u qabtid u tusin kartaa ilmaha inta badan waxaa fiican naxariis in lagu koriyo waalidka maxaa la mar walba xanaaqsan ama ilmaha mar walba dilka ka soo horeeyo cunugaaga wuxuu noqonayaa cunug khalkhal badan oo maxaa la asigana cabsi badan haddii kaale aad tiraahdo xataa uu kaa naxo uu gariiro markaas taas inaan bedelno ilaan waxaan arkay aniga waxaan barnaamijka idin kula wadaagayn wuxuu yahay waxaan arkay waalid aad u badan oo ilmaha aad u garaaco garaacitaanka wax fiican maahan ilmaha maskaxdooda hoos u dhigayaa facoodu ka reebayaa yacni cunug degan maba naqanayo oo fakari karo waayo mar walba wuxuu ka cabsanayaa hadduu khalad sameeyo in la dilaayo cunuga hadduu wax yar sameeyo waa la garaacaa hadduu wax yar haleeyo waa la dilayaa waa lagu qeylinayaa cunugaas markaas nolol farxad leh iyo nolol deganaan leh maba ku kori karo marka waxaan rabaa qodobo yar inaan idila wadaago kuwaas oo ku saabsan sida jacayl u tusin kartid ilmahaaga marka ugu horeyso horta cunuga inaad jeceshahay adiga waa ogtahay as waalid because adaa dhashay soo maahan marka horta waa in loo sheegaa cunuga mar walba loogu celceliyo hooyo waan ku jecelahay aabo waan ku jecelahay mar walba cunuga haddaa u muujisid inaad jeceshahay soo dhaweysatid wuu aaminayaa wuuna ogyahay inaad jeceshahay laakiin yacni waxaa loo baahan yahay qofka inaad xasuusisid inaad jeceshahay ilmaha kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn intaba kuwa yaryariska kaliya maaha cunuga markuu yar yahay inta badan hooyada ee habta iyo macda iyo mar walba siisaa laakiin kuwa waaweyn waa la iska ilaabaa cunugaaga marka subax soo kaco waqtigaas ugu fiican yacni marka saas u soo kaca oo cunuga oo ku imaado hab inaad siisid mac siisid hooy ma fiican tahay waa soo nabad kacday maasha allah hooy waa ku jeclahay ord isdiyaari marka cunug weyn oo isdiyaarinayo iskuul ama madraso isku diyaarinayo hadduu yahay cunuga isdiyaariyo kii kaloo yar oo adiga hagaajinaysan u hagaajisid waxaaga oo cunuga mar walba u sheegtid subax walbo haddii u sheegtid cunugaaga wallahi naxariista iyo kalgaceylka ka muuqato iyo indhihiisa markuu kusoo fiiriyo yacni ma maleysan kartid unlike cunuga oo mar walba aad dishid oo kaa cararayo wuu kaa cabsanaa meesha aad taaganta uu kacday hayey yacni waxaan qareeba qof laga ordo marka cunuga mar walba jaceylka inaa u sheegtid oo aad dareensiisid inaad jeceshahay habta aad siisid macda aad siisid mar walbo dareen kalgaceyl ku jira aad tusid cunugii wuxuu helayaa dhiiranaan iyo naxariis waayo hooyada iyo aabahaba waa naxariis maahano ilmahan qofka kaliya naxariis ka helayaan waa labadaas haddii ay ka waayaan hadhow banaankay ka aadayaan cunug mar walba fakanayo duurka galaya haddaa aragti waa cunug gurigiisii naxariis ka waaye ilmaha dheedheesha iyo waxaasna way u fiicantaa mar walba in loo ogolaado cunugii inuu dheedheelo waalidkii inay la cayaaraan marmarka qaar waqti siiyaan waxaa kaloo fiican in la siiyo cunuga waqti oo lala sheekaysto la xog wareysto maanta sidee ahayd maalintaada hooyo maxaa soo baratay macalinka muxuu ku dhahay ilmaha oo isla ciyaartiin iyo cunuga oo maxaa la saaxiibaha aad tihiin magaciisa waxaas oo dhan inaad weydiisid xog wareysatid mar walba haddaa wareysatid cunuga wuxuu dareemayaa inaa yacni interested ku tahay yacni waxa uu sheegayo dhan oo aad dhegeysid u dhagraaricisid mar walbana wixii dhac uu kuu sheegayaa markaas waxa kuu sahlanaanayso cunugaaga at least wixii kusoo wajaho iyo xaaladiisa maanta dee murug ka muuqatay hadduu faraxsan yahay adi waa kala garanay because cunugaa mar walba la sheekaysatay iyo cunugaa mar walba ka aamusantaa waryaa socole aad dhehaysid isku mid ma ahan waxaa kaloo jiro oo cunugaaga aad jacayl ku tusin kartaa cunuga ilmaha inta badan guriga markay ku jiraan way caajisayaan inaad banaanka geysid oo waqti lasoo qaadatid hawada banaanka aad geysid meel lagu cayaaro oo fudud heli karti inaad geysid haddii aysan ahayn xataa inaad xaafadaha 2 jid 5 jid aad soo wareegtiin aad soo noqotiin cunug socon karo hadduu yahay mid yariis waaba yaryahaba kaas socod maba ka bixi karo waxaa kaloo u sheegtaa cunuga mar walbo inaad ku kalsoon tahay hooyo macaan oo kugu kalsoonahay cunug fiicanaad tahay waa fiican tahay qof dadaalayaa tahay mar walba haddaa dhahdid cunugaas wuxuu noqonayaa cunug fiican oo dadaal badan oo noqonayaa because kalsooniyo haystaa mar walba adaa u sheegaysid maskaxdiisa waxaa ku duubmaysa marka inuu qof fiican yahay oo lagu kalsoon yahay uu yahay marka waxaa kaloo jiro inaa ka ilaalisid cunuga erayada xunxun oo qalbigooda dhaawacaya ama caayda waalidiinta Soomaalida hadda inta badan ani kuwo badan oo aan arkay oo maqlay maalin kasto wadada markaa maraysid xaafada ag maraysid waxaa arkaysaa hooyo cod dheer ku qaylinayso cunuga caynayso erayo xataa adiga afkaaga aysan qaban karin ku dhahayso
cunugina hadhow beri walaalihiis oo ku dhahaya ilmihii banaanka joogo ku dhahaya aflagaadada caayda ilmaha laga daayo min fadlikum ilmaha erayo wanaagsan halula hadlo maxaa lahayay caayda wax xun wax aad u xun waaye waxa anaga wadankeena burburiyeen waxaas waa dadka waaweyn xataa hadaa aragtin banaanka ku caaytama caayda wax xun waaye please caayda la iska daayo ilmaha hala faaniyo haloo naxariisto caayda laga daayo mar walba hala dhiirigeliyo kalsooni isku filnaan ka helayaan mar walba haloo duceeyo ducadana waa shay muhiim ah cunuga mar walba adiga aad korisid wax fiican aad siisid cunto sii wax u soo gad laakiin aana ku dadaashid akhlaaqdiisa wixiisa laakiin waxaa mar walba kaashata ilaahay qofa ilaahay tala saaran wax ma uu hagaagayaan soomaha ilaahay qofku hadeeyo un baan hadiismaayo marka mar walba u duceey inuu ilaahay ilmaha noo hadeeyo ducada waa shay muhiim ah ilmaha mar walba in loo duceeyo ilaahu ii hadeey ilaahu ii toosi ilaahu ii wanaaji cunugayga hadaad tiraadid insha allah ilaahayna wuu noo wada hadeynaya wuu noo toosinayaa marka ducada mar walba loo kaashado cunuga markuu kaa xanaajiyo xataa inta habaar ku gamile duco ku gan ducadaas ilaahay ku aqbalaya insha allah cunuga marka uu wax fiican sameeyo u hambaliyay iskuulka wax fiican haduu keeno quraanka haduu meel fiican ka gaaro maanta haduu suuradii ama casharka si fiican uga soo baxo maasha allah waa dadaashay khayr ilaah ku siiyo maxaa laayay wax fiican sameysay intaas ka sii wad hadii lacala cunuga oo taas mid ka duwan oo sameeyo oo wax fiican keensan waayeen yaana lagu canaanan lagu dilin cunuga waxbarashada si tartiib ah in looga dhaadhiciyo maahan dil wax mu tareeso wuxuu ka sii qaadaya naxdin iyo niyad marka saas kaalay gacanta u taagtid cunugii inuu ku soo dhawaado la rabo isku naxayo isku kadadana ilmo badan arka ani ciyaala waxa u dhigaa macallin u ahay ilmaha qaarkood marka arko kaale ay iraahdo ayaga dhan waa isku naxayaan waayo waa cunug dilka laga badiyay oo maxaa lahayay oo asiga dhanba naxsan oo isdhahayo qof weyn gacanta ku soo taago ku dil rabaa isdhahayo yani subhanallah waxaas wax fiican maahan ilmaha loo naxariisto hadii wax fiican keen waayaan xataa hal dhaho maanta wax fiican maada keenin laakiin biri dadaal khaladkii maanta aad sameysay يعني meesha ka khaldanay iska sax birisa oo soo hagaajisid laakiin hadii lagu dilo mar walba cunug wax ma diyaari karo cabsi darteed iyo khalkhal darteed wax ma la diyaari karo marka cunuga hal dhaho guusha iyo guul darada labadaba way dhacdaa haduu guuleysto u hambaliyo haduu guuleysan waayo waxa leedahay wali jaanis kala haysataa isku saxdid maxaa laayay ha isdhigin dadaal insha Allah saas la rabaa cunuga in mar walba dadaal lala muujiyo waxa lala akhriyo cashirkii la fahamsiiyo maxaa lahay marka waxa la rabaa waalidka inuu noqdo dhiirigeliyaha koowaad ee carruurta mar walba in loo sheego ilmaha in la jecel yahay waxay qabtaan lagu dhiirigeliyo hadii lacala keeni waayaan wixii aad u dirtay ama saweyn waayaan aad ku canaananin aad u sheegtid qaabka loo qabto si naxariis kalgacayl ku jirto waxaan rajeynayaa dhammaan inaad ka faa'iidi doontaan qodobada aad la wadaagay waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagtiin asxaabtiina oo muuqaalka like aad saartiin subscribe waxa kale inaad beelka furatiin ama gambaleelka si aad ula socotiin barnaamijyada kale aad la wadaagi doono inta badan barnaamijyadeeda waxaan jeclahay inaan ku beesgareeyo carruurta maadaama aan aad u jeclahay in la koriyo ilmo aad u naxariis badan oo maxaa laayay dulqaad leh oo maxaa laayay jecel in naxariis lagu koriyo marka waa mahadsantihiin dhammaantiin inta channelkayga ku xiran inta hadda kadib arki doonto waan soo dhaweynayaa gacmo furan hamuugaanina insha Allah waxaan soo wadaa barnaamijyo badan oo xiiso badan oo idin raali geliyo la sii wadaaga dhammaan waalidka u baahan inay arimahan raacaan oo ama aad ku aragtay in carruurta ay dilaan oo u baahan inay iska bedelaan qaabkooda jazakumullahu khayr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.